Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu idin ahaantiina meel kasta aad adduunka kaga joogtaan waxaan idin leeyahay waa salaamantihiin. Haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay la joogaaga. Haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay soo dhawow kuna soo dhawow janalkeena Farxii Filsan Official. Waxaan mar waliba idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad inoola socotaan mase ay noogu xiran tihiin. Maanta waxaan idin wadaa cunooyinka loo isticmaalo dadka qaba sokorta ama macaanka. Macaanka ama sokorowga waa cudur ku dhaca dadka waaweyn ama da'da ah ama caruurta qaar. Wuxuu inta badan saameyn ba'an u geystaa dadka da'da ah. Haddaba maanta anaga kama hadli doono sida uu ku dhaco iyo sida uu ku faafo iyo waxyaabaha sababo, balse maanta waxaan ka hadli doonaa cunooyinka loo isticmaalo qofka qaba sokorta ama uu isticmaali karo qofka qaba sokorta. Insha Allah waxaan soo qaadan doonaa ilaa 7 cuno oo loo isticmaali karo qofka qaba sokorta. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad nala socotaan. Waxaa ka mid ah cunooyinka loo isticmaalo sokorta. 1. Watermelon ama afka Soomaaliya waxa lagu yiraahdo qarqaraar. Qarqaraarku waxaa loo isticmaalaa in cabitaan lagu dhigto, in bud ahaan loo isticmaalo iyo in qudaarta lagu cuno. Qarqaraarka inta badan dalkeena Soomaaliya kama baxo oo wuxuu ku badan yahay dalka Indiga oo inta badan laga isticmaalaa. Waxa kale oo loo isticmaalaa qofka qaba sokorta oo cun ahaan u isticmaali karaa Camel milk ama afkeena Soomaaliya waxa lagu yiraahdo caanaha geela. Caanaha geela waxa ku jirto hormones oo loo yaqaan insulin taa oo kontaroosha sokorta. Caanaha geela sidaan u ognahay inta badan dalkeena Soomaaliya waa laga helaa oo waxaan ka mid nahay dadka dhaqda geela. Cunooyinka kale ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah midda saddexaad xabad soodada ama malmalka. Malmalka boqolkiiba 75 wuxuu kontaroolaa sokorta. 4. Waxaa kale oo loo isticmaalaa groundnutka ama looska. Boqolkiiba 21 wuxuu kontaroolaa looska cudurka sokorta. Waxaana ku jirta maadooyin loo yaqaan magnesium taasi oo kontaroosha cudurka sokorta. Waxaa kale oo loo isticmaalaa baamiyaha. Baamiyaha waxa uu ka mid yahay cunooyinka loo isticmaalo mise lagu kontaroolo sokorta. Saynis yahano badan waxa ay sheegeen in lagu bedeli karo booska kaniiniga baamiyaha, laakiinse weli ma cadeynin. Waxaa kale oo loo isticmaalaa cunooyinka midka lixaad basbaaska. Basbaaska asagana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu kontaroolo cudurka sokorta. Waxaa jirto tan ugu dambeysa ee loo isticmaalo haduu idmo cudurka sokorta waa mid 7 huruuda. Huruuda waxay hoos u dhigtaa macaanka waxa ku jirto hormone loo yaqaan insulin. Waxaa la sheegay in ay huruuda ka awood badan tahay 40 jeer daawada macaanka loo isticmaalo oo magaceeda lagu magacaabo metformin oo ah daawada ugu caansan ee loo qaato sokorta nooca 2. Waxay kaloo ay huruuda baabi'isaa ama meesha ka saartaa dhibaatooyinka ay ku reebto sokorta jirka sida neerfaha, kilyaha, indhaha, xididada iyo dhammaan jirka. Intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni aan kaga hadlaynay cunooyinka loo isticmaalo sokorta. Inta mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. Isma dhaafno. Ha inaga hilmaamina share-ta, comment-ga iyo subscribe-ka. Intaba waxay inoo tahay dhiirigelin insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad wax naga faa'iido. Anagana waxaan rajeynaynaa inaad wax ka faa'iidno. Salaamu calaykum. Isma dhaafna dhamaanteenaba.